السلام عليكم صاحب يال waxa fiidoogan duubi waa saaxiibkii Naxmahay insha Allah waxa xagan ku duubi doona fiidoo aad u koobnaan doono fiidoogaas oo uga hadli doono maxay tahay farqiga u dhaxeeya smart money vs break and retest maxay tahay farqiga u dhaxeeya smart money iyo break retestiga maxay smart money ku fiican tahay maxay break and retest ku fiican tahay keeba faa'iido badan keeba khasaaro badan marka insha Allah bidna la karim afayb intaan fiidoo horta aan gudaha u sii gelin saaxiib yaal hadda kamid ah asxaabta ku xiran channelkeena ahay traders fadlan ku soo biir si aad ula socoto insha Allah updateska soo dhigno haddii aan ku horeeyo smart money ka faa'iido badan tahay break and retestiga mise break and retestiga ka faa'iido badan tahay smart money horta qofku waa inuu ogaadaa in labada istiraatiijiyoodba ay shaqeeyaan labada istiraatiijiyoodna ay dad u kala shaqeeyaan marka adiga ma aha inaad dhahdid istiraatiijiyadan aniga ii shaqeyn weyday istiraatiijiyad shaqeysa maaha totally istiraatiijiyadu way shaqeysaa laakiin adiga ku shaqeyn weyday macnaheeduna maaha inaysan qof kale u shaqeyn aniga labadooda waa isticmaali jirtay break and retest waa isticmaali jiray smart money hadda isticmaalaa laakiin markii aad si sax ah u ogaato suuqan waxaa ogaanaysaa inaysan ahayn istiraatiijiyad laakiin ay tahay system marka qof markaa dhaho system istiraatiijiyadna isku mid u noqotaa laga yaabaa laakiin system istiraatiijiyadu macno weyn baa u dhexeeyo insha Allah tusaalaha halkan aan kula wadaagi doono waxa weeye waa lacagta JBP AUD ama pound AUD wax la dhaho lacagtan insha Allah waxaa ka samayn doonaa tusaalo smart money ah waa ku hormari doonaa ka bacdina tusaalo break and retest ah marka waxa ugu horeeya horta ah smart money marka entry qaadanayo ani ahaanteyda waa inaan ka helaa xagan igu qor waa inaan dhowrkan qodob ka helaa qodobka ugu horeeyo ah waxa koowaad trade ka fiirinayo waa maxay waa inaan helaa liquidity line waa inaan helaa qodobka labaad oo aan ka fiirinayna waa inaan helaa liquiditygaas meesha aan ka helay korkeeda areada ah waa inaan ka helaa supply ama demand hadba haddii ama hoostaan demand zone okay qodobka saddexaad oo u baahanayna waa inaan helaa mitigation ii yimaado mitigation move ii yimaado supply zonekii waxa afraad u dambeeya u baahanaya waa maxay afraad yani ugu dambeeya ka afraad u baahanaya waa maxay waa inaan helaa waxa la dhaho counter trend break ama saa u taqaanaan boss break of structure qodobka u dambeeyo ah qodobka shanaad entry shantaa qodob baa si u kala horeeyaan baa loo kala fiirinayaa dadka qaar baa waxa laga yaabaa entry inay ku hormaraan entryga uma horeeyo entry waa laga horeeyaa wax badan baa ka horeeyo waa hafta inaan helnaa waxa ka horeeya dhan waa inaan helnaa marka traderka inta aan ka helo ka bacdi baa entryga qaadanaya okay marka lacagtan one hourkeeda ii tag lacagtan one hourka markaa fiirsho for hour ahaan bay la socotaa lacag meesha u fiirinayo waa maxay lacagtan hadda meesha ay joogto barta ay hadda joogto waxay u muuqataa inay sameynayso liquidity aad u qurux badan waliba taas fiican u fiiri yes liquidity aad u qurux badan bay sameynaysaa maxaa haystaa iyo calaamad marka liquidity bottom marka aan liquidity helo maxaa inaan helo u baahanaya baa iri areada cost waa inaan supply zone ama demand zone hadba kii ku jira waa inaan ka helo hadda meeshan waa demand zone okay demand zone iga raadi demand zone kii xagee noqon karo halkan demand zone noqon karo marka areadan dhanba waxay tahay demand zone kii okay maxaa helay marka maxaa hadda haystaa demand zone baa haysataa maxaa kaloo haystaa liquidity baa haystaa maxaa u baahanahay marka waxaa u baahanahay in suuqu ii sameeyo
waxa u baahanahay suuq inuu ii sameeyo inuu meeshan ii soo jabsado mitigation move-ka aan rabo ii sameeyo kabacdi mitigation move-ka intuu ii sameeyo uu kabacdi uu kor iigu laabto oo intuu korka igu noqdo oo break ii sameeyo kabacdi entry-ga kusoo noqdo kabacdina suuqaasi dhaqaaqo structure noocaas ah u baahana haddii intaa ka waayo no trade okay aad weysii marka sameynaya marka intaas maxaa haystaa marka mitigation move aad u wax badan baa haystaa halkaa marka aad joogo mitigationkiina aa helay supply zonkiina 15 minutes baa tegayaa content bringing ama break of structure-kayga 15 minutes baa ka dhiganaya marka 15 minutes markaa tago maxaa raadinayaa waxaa raadinayaa the last low high of 15 minutes okay suuqaan markuu wuxuu sameynayay low high low alaan ka sameeyey low high uu sameeyey low okay marka at this point markuu meeshaan yimaaday suuqayga hadduu suuqu sameeyo saana sameeyo oo low cusub samaysto low high meeshaan ay noqonayso laakiin hadda xaggee ah halkaan hadda iya xaggee baa iraaday low high iyo waa bartaan maxay u qoraysaa break of structure maalinta halkaa jabiyo baa entry suuqaan ka raadinaya inta ka horeyso hadduu meeshan mar walbaa jabiyo meeshan waa soo rarayaa okay marka naqaaji that means low cusub buu sameeyey laakiin low high cusub ma sameyn hadduu new low sameeyo low high meeshan ka sameeyo waa ana noo noqonayso laakiin weli halkaas noo break of structure-keena almost fiican okay clear break buu ii sameeyey that means maxaa haystaa suuqu maxaa iraada waa inaa helaa clear break of structure waa inaa helaa maxaa sugayaa kabacdi intrigii baa sugayaa waa inuu suuqu iisoo noqdaa weli okay xaggee intriga dhiganaya marka ma halkaan dhiganaya ma halkaasaa dhiganaya ma halkaasaa dhiganaya ani ahaanteyda trade halka meesha dhiganayo OB-ga dhigan lahaa OB-gaan ii noqon lahaa halkaana intrigii noqon lahayd halkaan maxay noqonaysaa OB marka entry waa dhihi kadhaa OB iskaga baxay laakiin entry waa dhihi kadhaa adi ahaan entry waa ku qoran kadhaa okay marka bartaan trade-ka iga dhig ma ii dhigta SL-kaygana waxaa ka dhigtaa 20 bi meelaha iga dhig okay sababta almost week waa la siminta markii meeshaan marayso markii meeshaan maray 1 to 1 iga dhig almost markuu maray 1 point something BE iga dhig inta kalena marka suuqan maxaa iraada kow maxayna soo iri suuq sharci qornay baa ka fiirinaa fiiri kow maxaan iri kow waa inaa helaa liquidity oo kow liquidity waa helaa waa inaa helaa supply ama demandkii waa helaa suuq marka hoos joogo hoos ka entry buy raadin waa inaa demand zone helnaa waa inaa helaa 3 mitigation move waa inaa helaa 4 maxaa iraada waa inaa counter break helaa counter break ma saacadda 1 hour baa ka fiirinaya may waxaa ka fiirinaya 15 minutes baa ka raadinaya 15 minutes ka heli karaa counter break 15 minutes waa ka hela okay shan maxaa waa inaa helaa waa inaa markaas entry-ga dhigtaa entry-ga dhig marka lacagtu ii taalaa entry halkaas counter break iyo low time frame baa kasoo helay let's go marka okay way furay TC asal miyaa nooga dhacaya halkaan idhig masha Allah aad qurux badan buu dhaaqay ilaa halkaan oo kale dhigaaday haygan almost 200 oo bib oo clear 200 bibs yani 1.9 something 20 bib baa qaatay asal masha Allah si aad qurux badan buu socdaa walaa ku dhaca marka maxaa ka haystaa marka lacagtan maxaa ku galay trade-kan markaa galay miska gala trade-kan mise sharciye iyo mataqaanaa ishaan waa ku gala trade-kan qorsha ku gala trade-kan maxaa iraaday trade marka aanu trade qaadanay waa inaa 4 qodob helaa 5 qodob markaa helaa ka bacdi trade entry qaadanaya 5 qodob markaa helaa 5 sharci markaa helaa ha waa ka helaa trade-ki ma qaad
waa qaad trade hadduu asal iga dhici lahaa ma ka nixi lahaa may kama nixin sababtoo ah trade qorshaa ku qaatay wax mar haddaa qorsho ugu socotid qorshana u qaatayna kama nixin suuqu waa soo asaxsan tahay wey marka qaab noocaas oo kale markaa smart money joogtid trade smart money wuxuu ku fiican yahay marka smart money wuxuu ku fiican yahay early entry baa soo qaadanaysaa confirmationkan low time frame baa ka raadinaysaa confirmation low time frame inuu change of trend dhacay baa ka raadisa lacagtan markay socotay fiiri xagga waxaan ka tusiyahay lacagtan ayadoo ku socoto down trend aa ujeedid oo lacagtani sell tahay one hour sell caadi ayadoo ku socoto baa maxaa ka raadina fursad ah buy ah maxay tahay marka waa reversal lacagtan waxaa ka rabnay change opposite ah suuqu soo dhinac u socday maaha dhinac ka duwan baa u raadina fursadda halka meeshan down trend buu ku socday laakiin suuqan maxaa ka rabnay buy inuu noo aado okay halka dhinaca kalena arki doono suuqa sababta dhinaca suuqa loo raadinayo marka waxaa rajeynaya insha allah inaa intrigan smart money dadka isticmaalin wax ka fahmeen insha allah break artist marka aad joogan u qaadanaya trade noocan oo kale ama trade isla fursadaas noocaas break artist oo qaadanaya meesha taalo okay asugna marka iyadana saaxiib yaal insha allah xaggana waxaan kula wadaagi doonaa waa isla lacagta JBBAUD tusaalaha hadda aan la wadaagayna waa break and retest tusaalo marka insha allah hadhow videoga marka qaybtan aad daawatid waxaa arki doontaa farqiga u dhexeeyo inta labada entry haddaa xasutid intriga hore markaa qaadanaya qaabka u xasutay dib ugu laabo si fiican u fiiri intriga qaabka u qaadanayay halkaana intriga saa u qaadanaya insha allah ayaan si fiican u fiiri marka break and retest la joogo waxaa jirta sharciyo la raacayo oo qofku markuu trade inuu qaato uu rabo inuu qaato trade iska mu qaadanayo sharciyada ayadana maxay yihiin marka wax aana sharci lahayn wax shaqaynaya ma aha yaab inaad taa ogaatay qofku markuu inuu taa ogaada waxa koowaad oo qofku fiirinaya waa maxay waxa koowaad oo suuq qofku fiirinaya waa maxay waxa weeye suuqu waxa koowaad waa maxay trend of the market direction of the trend xagga direction of the trend wajahada suuq u socda markaan xagee weeye waxa labaad oo u baahanaya waxa weeye face of the market waxa saddexaad u baahanaya waxa weeye which level baa trade-kan ka rabaa annaga trade-ka raadin waa retest suuqu xaguu joogaa ma retest levelkii uu joogaa ma banaan ku aaday mise weli ma jabsan waa inaad taa ogtahay qodobka saddexaad oo ah price action kaasna waa price actionkii qodobka afraad aa usii baahanayna waa maxay waxa la dhaho aduu inta saddexda qodob awdeyno marka waxa koowaad lacagtan sida marka hadda saan u aragno maxaa arkaya lacagtan waxaa arkaya inay tahay fursad sell ah suuqaana u socdo suuq sell market inuu yahay okay maxaa u yiraahdaa suuqa waa suuq sell market ah sababta u leeyahay suuqan waa suuq sell market ah waa sababtoo ah suuqan waxa uu sameynaya waxa weeye haddaa halkan fi low ahaa low high lama jabsan that means new low the last low high u dambeeyay suuqan uu samaysto meeshan halkan maxay tahay marka bartaas waxay ii tahay waa the area suuqu uu yahay meesha suuqa ka hubsanayo suuqan kor uu selkiisa iska bedelay in down trendki iska bedelay inuu up trendki ku socdo halkaana maxay ii tahay hadduu meesha suuqan halkan ii jabsado maxay tahay halkan hadduu suuqu ii jabsadana maxay noqonaysaa waa level of that means suuqan in meeshan markaan tusaas intuu igu jabsado oo halkan suuq intuu meesha ii jabsado igu soo noqdo kabacdina sell u qaato suuqaas hadduu taa ii sameyna waa inuu suuqan intuu areadan ku wareego oo meeshan ii jabsadaa kabacdi uu ku soo noqdaa kabacdina bayga ii aadaa
labadaas scenario keliya ka sugaya marka suuqaani. Suuqa markuu meeshaan jabsaday وصا جبسي مياه هرك قادني أمي bush face بسوقيا وماشى أن ليه هاي face of market سوق bush face مركو مريو ما قادني سوق وين exertion قلا exertion مركو قلا كبعدي ترك قاطع أوكي مرك أنت سبحان الله وحدك ما لا تويسي مركو سوق محوس يعني أمر الوضع حال الوضع كذا البضي وينو مدي يسميها أما هذيك له نو تريد واحد تريد قادني ماله الوضع أنا قاعد البضي الوضع سوق وينو مدي يسميها يعني كبعدي ترك قادني سوقا طبعا محوس يعني أنا مرك أوكي in lacagtan uu suuq intuu meesha ka baxo okay suuqaani meeshan sidii uu soo noqday at least waa inuu suuq xoogaa intuu ka dhaqaaqo mar xoogaa si fiican oo dhaqaaqa marka asugna bal wali meesha marka wali ma gelin suuqan waa inuu suuqa intuu meesha dhaqaaqo ka bacdi soo noqdaa like this ha ku soo noqdo okay meeshan hadda markuu bartaa marayo kale oo suuq inta ay sameeyay suuqan kale ku kalsoonaan kara traderka ay qaad halka ilig SL kana meesha hoose ilig traderkana meesha ilig traderkan noocaan oo kale haduu yahay oo kalsoonaan kara marka maxaa sameeyay marka traderkan maxaa ka helay trendigiisa marka hore soo ogaaday change of trend inuu yahay soo ogaaday awal sell buu ku socday laakiin change of trend baa dhacay maxaa kale ogaaday waxa kale oo face of market suuqan inuu bush ku jiray exertion baa sugay ka bacdi baa traderka qaatay price action ahaan suuqan muxuu ii sameeyay price action ahaan kan lahaan marka loo fiiriyo wixii ii sameeyay waxa weeye suuqan inuu sameeyay weekly one candle weekly rejection suuqan ku socdaatay suuqan inuu isbedeli boqolkiiba 80 oo badan tahay maxaa ka haystaa candle kale weekly rejection ka haystaa candle سمجد maxaa ka aragtaa laba candle oo iska soo horjeedo that means meesha waa maxay suuqaas jihada ama socdo okay ii furo traderkaas traderka muxuu ga dhacay traderka muxuu nooga dhacay SL buu nooga dhacay sababta SL nooga dhacay waa maxay marka sababta SL nooga dhacay waa inaad isweydiisid traderka hadana muxuu sii sameeyay uu si dhaqaaqa fiiri traderka marka direction ahaan miyaa khalada traderka direction ahaan ma khaldano laakiin suuqa SL uu kaaga dhici karaa TB uu kugu dhici karaa labadaba marka laakiin muhiimadu waa maxay conceptiga weeye conceptiga maxay sheegaysaa suuqan inaad qorshe ku qaadatay inaad suuqan direction of the trend marka hore soo ogaatay inuu siyaasad isbedesho ogaatay face marka ogaatay price action ka ogaatay almost 25 biba ku qaatay hadaa soo qofkii 30 biba ku qaato kale ama 30 biba kale qof 30 biba walaa uu ka taxaadaya laakiin maxasab ayna 30 biba ku qaato may fogad trade 25 ku heliya jir 20 ku heliyo ka qaado ka kala 30 faraha qara ka qaad iska ilow marka labada istiraatiiji maxay kala duwan yihiin labada istiraatiiji waxay kala duwan yihiin trend halkaan ka qaata trend halkaas ka soo qaata almost traderka marka halkaan trader ka raadinayo anu qof marka ismaad man isticmaalay halkaan trader ka soo qaatayo almost lacagta marka meeshan ka raadinayso 120 bi meelahaas iyo wadaabani halka uu marka trader marka raadinayso laakiin labada trader maxay kala duwan yihiin tan directionkii fiir suuqi oo aan wali 1 hourka iska soo bedelin oo sell ku socdo baadu maxaa u qaadanaysaa baadu bay ahaan u qaadanaysaa halka fiiri halka qofkan kale oo break and retesting isticmaalayo suuqan sell u soo socday maalinta uu halka iska kala bedelay halka uu hubsayn uu iska kala bedelay buu ka bacdi sii qaadanaya waa difference noo dhaxeeyo qofka smart money isticmaalay iyo qofka isticmaalay smart money marka qof qaar ma waxa jirto oo continuation trade yahay oo suuq oo dhinaca la socdo u sii raacayo laakiin boqolkiiba 80 inta trade la raadiyo waxa waa trade reversalka trade oo qurux badan waa trade marka waxa jeclahay saaxiibina wax badan ka fahanteen videogaas waxna ka faa'iideen labada istiraatiiji way wada shaqeeyaan mid kastana laakiin mid waxay ku fiican tahay meelna way ku xun tahay marka adiga mid kugu shaqeynayso kugu soo baxayso isticmaal insha Allah saaxiib yaal gul baan idin rajeynaa oo mahadsantiin daawashada videogan mar labaad in xasuusiyo hadaa marka ugu horeysa videogan daawanaysid ama channelkeena wax ka daawanaysid fadlan subscribe noo saar si insha Allah videoyaasha dambe soo dhigana oo la socotid mahadsantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته